tartankii Champions League ciyaarihiisi waa ay soo gabagaboobeen kooxdii Real Madrid ahaydna waxbaa ku dhacay markii ay 3 gool iyo eber khasaare kala kulantay kooxda Arsenal oo ay marti u ahayd kulanka lugta koobaad ee kooxaha Yurub tartankooda Champions League wareegga 8. Arsenal ayaana hadda sii calmanaysa inay u dhawaato booska wareegga 4 oo ciyaarta dambe ee ka dhici doonta Bernabeu ayay ku xirnaan doontaa wixii ay Gunners ka keento. haddii kulankaas ay sii adkaato kaba fiican, haddii ay garab dhac gashana sidoo kale waa Arsenal oo u gudbaysa wareegga 4. haddiise Arsenal 3 gool laga soo celiyay iyana ay wax dhalin weyso, halkaas waxaa dib loo ciyaari doonaa ciyaar dheeri ah. ciyaartan Declan Rice ayaa taariikh ka sameeyey oo waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee taariikhda tartanka Champions League 2 bulisyon ciyaar weliba heerkan oo kale wareegyada knockout-ka isagu ka dhaliya, waxaana xidigan reer England uu dhaliyay 2 gool oo bulisyon ahaa ciyaarta xiisaha leh. Michael Merino ayaa goolka kale u dhaliyay kooxda Arsenal, waxaana Real Madrid ay ku fashilantay dhammaan fursadihii ay heshay in ay midkood gool u beddesho. Eduardo Camavinga ayaa ciyaartaas kaarka gaduudan looga saaray dhammaadkeedii, waxaana ciyaaryahankaasi aanay suuragal u noqon doonin inuu ciyaaro lugta labaad ee tartanka Champions League ee ka dhici doonta gegida Bernabeu. kulankaas haddii aanu halkaa kaga gudubno, dhinaca kale Inter Milan ayaa kusoo adkaatay garoonka kooxda Bayern Munich ay ku ciyaarto ee Allianz Arena. 2 gool iyo gool ayaa lagu dhuftay kooxda Bayern Munich oo marti loo ahaa. Bayern kulankan goolka hore waa looga horreeyay Lautaro Martinez oo weerarka uga ciyaara kooxda Inter Argentina kasoo jeeda ayaa dhaliyay goolka hore, waxaana Bayern usoo barbareeyay daqiiqadihii 85aad ciyaaryahankooda lagu magacaabo Thomas Muller oo kooxda Bayern Munich dhowaan isaga dhaqaaqaya. Muller goolkaas uu dhaliyay ma aanu raagin oo ciyaaryahanka Verratti oo bedel kusoo galay ayaa 88 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay goolka guusha u dhaliyay kooxda Inter Milan oo hanaan difaac oo xoog badan iyadoo ku ciyaaraysay kulan ciyaareedkan. Inter ayaana sidaas waxay ku haysataa fursad fiican maadaama gurigeeda lagu ciyaari doono lugta labaad, natiijo guul ahna ay halkaas ka haysato. waa Muuse Xushow, daawadayaal noogu dhufta subscribe-ka qaybtana YouTube, sidoo kalena waxaad followda inoo saartaan Facebook-ga. waad ku mahadsantihiin la socodka.